ودتك لنا أورامدا أما يتوبي نجيمي دتكاس علاج ودن كودي كسوك حيسو إنه كنت ما شرت باهي ودن كودي كشرتا أو إنه كنت ما شرتو بل إنه يجابي نقودي إنك يجابي نقود برنا الله يا خضار تيعانها يلقى سينو جيمة أدي ما نقول الله حد حدود دوي ذي كاركي حبة تمانة دين تيجي وقاعد دتكاسي صدق صفاه أو مسكينان والله يبيلي مركب كوات لعقت يراشين كلا وضع بويقاتان أو دتكنا دكان هذا يوم هذا هي السوق كنا لعقت يكقران حافظها نحن ذي كقران وقدم كوات قدم كلمات دد عبادة يستأهل عبادة أماها بس أجداد وين هرف الديوان كوسر دافسان كوسر دافسان مركز صديحات بقول كيف السجاشر إن كم بدل المسلمين بماه إمام داعس يا خميس كوسك قاله أو حلو ديبوي وأنا وحويان إسلام لما يدي منه ومحرم لما كلمة ذو بان الله برا السلام عليكم يا الليبان يضو نبتاسي نجاه يسطو فوحان أوجادي دبقل بدن بكسمي وحان سو أوجادي إن يدد ودن كودا شيء كينام با ويكوش قيستان الله عقتها بيرسنتج كلين ساد كان هايستان نبا يسكله ودن كودا شيء صدن كوبو كذا كريا وحوق صار عيا وقرن ما يروح اللو ديبو بك قادريا ولا دوفيس بدن كودو ويس لحاد تران من لحاد لا كو إندولها إلا هذا يا ما إندلا وحنو صوت تاجنا مد إندلا إندلا أنكم بتلي ما إندلا ومد يروه بمهرات أنكم تشربوا وحيش رجينا كلها نقص من إندلا بود ما حد كو عضينا سبانكو حد كو قرط وحول كايره والله هل كان هرت يدو كو قراعي ما ندوي وأكل قبتي بود وأنا محل كو قدي أكو سميس wuxuu igu leeyahay meheradan aan soo dhaafnay maxaad ii dhaafisay oo waxba arkaya arkaya buu albaab u qarshaystay albaab hadii la dhaafay dhigtu ku dhufanay ilmaha yarooda lad waxa uu fiirsada billahi alaykum ma lugala biraha halkan xisbiga lagaga karaya ma lugala waa waxaan soo taabtay anigu ma wax la iga sheekeeyay waa mujarrad dadkaasi hoy nagama kareystaan oo ama jaga xun oo banaano mid dayacani uu leeyahay bay buul ka dhisan ilaaliyaan amaba buulasha qaxoontiyada meelaha looga dhisay galaan hoy nagama kireystaan hunguri inagama iibsadaan oo koon cunadii magaalada ka guraya iyo xaafadaha hu inagama iibsadaan hu mara iyo kab midna bay nagama iibsadaan niman hunguri doonayn oon hu doonayn oon hoy saddexda midna ma aan kugu tarayn oo xataa calaqal wuxuu ka qaaday waxba aanay kaaga soo noqonayn haysadkiisu wuxuu faa'iido leeyahay dawladda iyo dadka waa la weydiinaya waxaan soo ogaaday sariflayaasha markaan waraysi la yeeshay waxay ii sheegeen inay sarifaan maalin walba ruux kasta oo oromiyo wuxuu sarifaa inta u dhaxaysa 300 bir ilaa 500 bir halka 100 bir waa 18 shilin oo laan haddaad isku celiso qofkii 100 kun oo laana soo gala beerayoom qofku soo galay muwaadinki waa naadir qofku soo gala muwaadin idan lacagtan ay midaydeenayna dhex wareegaysay waa tan baxaysa way baxaysaa kunka la guraya uu baxaya la kunka dib u soo noqdo macnuu sameyn la ma soo noqonay la doofirs inta waxaad raacisaa dhaqan xumida habla yar raacan baarsan baad arkaysaa shan jiidaya ila laale cid ka dhashay meel ku dhalan lama garanayo waxay sheegeen dad xoogayaali caruurta laftigooda waa laga kireeyaa bidhadeen xagaas ay ka soo kireystaan ilmahan yar percentage buu leeyahay lacagtan uu qaadanayo ninkan oramadii ilmahan percentage buu ku leeyahay waxaad intaa ku sii dartaa dhaqan xumida kale xanuunada zinada fasaadka khamriga xashiishada abkay qurun oo dhan hoy bay u yihiin waxa qodobka lixaad ah ma tira koobna di dawladda la weydiiyay misaa soo galo oramo dalka maalintii ma sheegi karaan boqolaal maalin walba qaar niyo cusub aad ku arkaysaa wadooyinka laga mari kari maayo masaajidadii laga geli kari maayo guryihii laga fadhiyi kari maayo waa qof soo shaqo tegay miskiinka waxa eriya
allah kariim haddaad tira iska tegaya ma tegaya isagu shantaan meel ku fadhidaanba mid buu dul istaagaya maxaa yeelay percentage buu ku xisaabtamaya yawmi ah waxaan wareysanay anigii nin kale wadaadi mid yar waxaan ku nidhi imsaati caruurta shan baan nahay buuri iyo hooyaday aabahay maalintii maxaa kuu qorshaysan 10 kun oo shilin buuri 10 kun oo shilin maalintii haddaan keeni waayo guriga hooyan maayo ma tegayo buuri warmada noocaasihi waajibka koowaad dawladdu saaray wasaaradaheedu saaray u xil saaran dadkan iyo bulshadan ay mas'uulka ka yihiin waajibka labaadna wuxuu saaray yahay bulshada qaybeeda kala duwan haday culimo tahay haday ganacsato tahay haday wax garad tahay haday madax dhaqameed tahay inaga soo waaridayno soo gelinayna qodobka toddobaad wuxuu yahay waxa laala wixii shaqo hoose ah ay dadkani qaban jiray way la wareegeen haduu ra'iis leeyahay haduu baalash yahay haduu yahay maaragtay baabuur la mayro waliba way ku dilayaan kama waddanka soo dhex gala dhagta dabadeeda ku dhufarayaan qof biyo ka marmayaan dalka waxa ilaashada dadka ku dhaqan ma dalka ilaashada dawladdu waa hormoodu waa hor socod laakiin muwaadinka dalka ilaashada inagu masaakiin waxayna biday anigu kuma khudbadaynayo area mali laakiin inuu miskiin yahay la xaqiijiyaa u baahan arin qoto dheer iyo baaritaan badan miskiin ma aha baan soo taabtay anigu kuwa halka jooga 99% ma masaakiin oo wada beeraley way marka aan ka tagaana nin soo degay oo California ka yimid iyo Washington ayuu ka dhigay baashu soo ururiyay ninka dheelay halka xawilaya 500 bir maalin 10kii cisho waxa weeyaan waa 5,000 bir bishii waa imisa 15,000 bir way 15,000 bir ninka beeramood xawilaya Ethiopia gudaheeda kama helay wax basnay hortad badan oo masaakiina oo inoo garanayno ehelkeena iyo qaraabadeenna jaarkeena waxa laga yaabaa nin wala halka fadhiyo khudbadeeda dhageysanayaba in jaar badan oo uu leeyahay aanay dabka shidan qaar niyo cusub aad ku arkaysaa wadooyinka laga mari kari maayo masaajidadii laga geli kari maayo guriyada laga fadhiyi kari maayo waa qof soo shaqo tagay miskiinka waxa eriya allah kariim haddaad tira iska tegaya ma tegaya isagu shantaan meel ku fadhidaanba mid buu dul istaagaya maxaa yeelay percentage buu ku xisaabtamaya yawmi ah waxaan wareysanay anigii nin kale wadaadi mid yar waxaan ku nidhi imsaati caruurta shan baan nahay buuri iyo hooyaday aabahay maalintii maxaa kuu qorshaysan 10 kun oo shilin buuri 10 kun oo shilin maalintii haddaan keeni waayo guriga hooyan maayo ma tegayo buuri warmada noocaasihi waajibka koowaad dawladdu saaray wasaaradaheedu saaray u xil saaran dadkan iyo bulshadan ay mas'uulka ka yihiin waajibka labaadna wuxuu saaray yahay bulshada qaybeeda kala duwan haday culimo tahay haday ganacsato tahay haday wax garad tahay haday madax dhaqameed tahay inaga soo waaridayno soo gelinayna qodobka toddobaad wuxuu yahay waxa laala wixii shaqo hoose ah ay dadkani qaban jiray way la wareegeen haduu ra'iis leeyahay haduu baalash yahay haduu yahay maaragtay baabuur la mayro waliba way ku dilayaan kama waddanka soo dhex gala dhagta dabadeeda ku dhufarayaan qof biyo ka marmayaan dalka waxa ilaashada dadka ku dhaqan ma dalka ilaashada dawladdu waa hormoodu waa hor socod laakiin muwaadinka dalka ilaashada inagu masaakiin waxayna biday anigu kuma khudbadaynayo area mali laakiin inuu miskiin yahay la xaqiijiyaa u baahan arin qoto dheer iyo baaritaan badan miskiin ma aha baan soo taabtay anigu kuwa halka jooga 99% ma masaakiin oo wada beeraley way marka aan ka tagaana nin soo degay oo California ka yimid iyo Washington ayuu ka dhigay baashu soo ururiyay ninka dheelay halka xawilaya 500 bir maalin 10kii cisho waxa weeyaan waa 5,000 bir bishii waa imisa 15,000 bir way 15,000 bir ninka beeramood xawilaya Ethiopia gudaheeda kama helay wax basnay hortad badan oo masaakiina oo inoo garanayno ehelkeena iyo qaraabadeenna jaarkeena waxa laga yaabaa nin wala halka fadhiyo khudbadeeda dhageysanayaba in jaar badan oo uu leeyahay aanay dabka shidan waxa jira waddankeena